waxaan maanta si dhab ah u xaqiiqsaday weedh ay dad badan ku muransanaayeen weedhaas oo ahayd quruxdu watan qalbiga waxayna la ahayd oo dhax caadi ah laakiin Nick Dismanteski ayaa ka dhigay xaqiiqo dhab ah oo ay dad badani aamineen ma qiyaasi kartaa inaad subax kasta soo toosto adigoo muraayada ka dhex arkaya waji ay ku sii kordhayaan burooyin waaweyn dad badan waxay dooran lahaayeen inay dhuntaan oo ay guryaha aysan ka soo bixin oo dunidaba ay ka qariyaan wajigooda laakiin Nick ma uusan yeelin taas isagu ma dhuuman ma uusan cabanin balse wuxuu go'aansaday inuu noqdo xidig TikToker ah oo malaayiin qof dhiirigeliya Nick wuxuu ku dhashay xaalad caafimaad oo loo yaqaan neurofibromatosis oo xanuun keena in burooyinka ay ka soo baxaan neerfayaasha jirka oo dhan Nick wuxuu markii ugu horreysay dareemay dhibaatadan isagoo 8 ilaa 9 sano jir ah markii uu weynaadayna xaaladdu way ka sii dartay wajigiisuna wuxuu bilaabay inuu isbedelo culays badanna uu saarmo inkastoo dadku ka duwan yahay Nick ma lumin kaftankiisii iyo qosolkiisiiba midna maanta isagoo waa jilaa saameyn ku leh baraha bulshada isagoo dadka la wadaaga xogo mararka qaarna la kaftama dadka ku xiran si uu u baro xanuunkaas wuxuu horay u soo maray 2 qalliin oo waaweyn haddana wuxuu sugayaa qalliinkiisii saddexaad si looga saaro culayska dheeriga ah ee wajigiisa ka laalaada Nick wuxuuna barayaa in marka xigta aad ka walwasho dhibaatooyinka yaryar aad ku cibro qaadato isaga wuxuu si buuxda ugu qanacsan yahay muuqaalkiisa taasina waa dhiirigelin dhab ah haddaba daawade ma la yaabtay kalsoonida Nick si fiicanna ma u dhuxday weedhi ahayd quruxdu watan qalbiga nagu soo qor fikirkaaga qaybta faallada hana ilaawin inaad subscribe dhahdo si aadan u seegin sheekada xigta ee xiisaha leh